Bilowga filimka waxaana la tusayaa wiil yar oo 11 jir ah oo lagu magacaabo Eli Miller isagoo isaga ciyaaraya bannaanka gurigooda. Qorrax diiran ay jirto ayaa hal mar waxaa ku dhagaysa neefta oo uu qunfacaya, kadibna dhulka ayuu ku dhacayaa. Intaas kadib, Eli wuxuu soo toosayaa isagoo sariirtiisa jiifa, wuxuuna ogaanayaa inay riyo uun ahayd. Eli waxa uu la ildaran yahay cudur naadir ah, kaasoo ah inuu xasaasiyad ku qabo hawada freeshka ah, taasoo macnaheedu tahay inuusan hawo nadiif ah qaadan karin. Bacdaas uu ku dhex jiro haddii uu ka soo baxana uu la kulmayo dhibaato badan, balse hooyadiis ayaa mar walba waxay dareensiinaysaa jacayl xad dhaaf ah iyadoo mar walba la joogto. Eli markuu iskuulka aadayo wuxuu isticmaalayaa dhar qaas ah oo loogu talagalay inuusan arkin hawada bannaanka. Dharkaasoo ah mid oksijiinkiisa wato. Dharkiisa ayuu xiranayaa, sidaas ayuuna iskuulka ku aadayaa. Balse Eli labadiisa waalid ayaa waxay markaan u soo wadayaan isbitaal. Safar dheer ayay soo galayaan, waxayna rabaan inay geeyaan isbitaal ka baxsan magaalada. Qoladan ayaa fududeynaysa ayagoo dhibaato u geysanaya, halkaasna suudkiisa qaybo ka mid ah ay ku jeexjeexmayaan, balse waalidiintiisa ayaa badbaadinaya oo sharooto ku dhejinaya. Intaas kadibna waxay sii wadanayaan safarkoodii dheeraa ayagoo ku sii jiro waddada maalmo. Ugu dambeyn waxay imaanayaan halkii ay u socdeen oo ah guri ku yaalo meel duur ah. Halkaas ayay soo galayaan, waxaana soo dhaweynaya Doctor Horn. Doctor ayaa u sheegaysa in wax walba ay okay noqon doonaan, ayna wiilkan daaweyn doonto. Eli waxaa loo sheegayaa in mar dhow uu awoodi doono inuu iska siibo dharkan si caadi ahna uu u noolaado. Intay waddada ku sii socdaan ayuu weydiinayaa haddii ay jiraan dad ay hadda ka hor daaweysay, balse waxay u ballan qaadaysaa inay xaalkiisa sidan si ka wanaagsan ka dhigi doonto. Waxay maqlayaan qaylo ka yeeraysa qolalka kale, balse ay kasii soconayaan. Ugu dambeyn, Eli waxaa la keenayaa isbitaalka gudihiisa, waxaana loo sheegay inuu halkan seexdo, uuna qubaysan karo, dharkan uu iska siibi karo isla markaana. Wiilkii yaraa markuu dharka iska siibo, farxad awgeed hooyadiis ayuu ku soo boodaya maadaama muddo sanooyin uusan habsaynin. Wuxuuna awoodaa inuu si caadi ah u soo qubaysto, dhar caadi ahna uu xirto. Habeennimadii Eli ma uusan seexanin maxaa yeelay wuxuu maqlayay codad kala duwan iyo qaylo ka imaanaysa qolalka kale, taas oo ku sababaysa inuusan hurdin. Kadibna wuu soo baxayaa oo wuxuu soo aadayaa dhanka iyo labadiisii waalid, isagoo u sheegay inuu cabsanayo uusan seexan karin. Ayaga ayaana ayuu la seexan. Subaxnimadii waa ay soo kaxeynayaan, waxa ayna keenayaan halkii qaliinka lagula sameyn lahaa, isagoo loo sheegay in horta ugu hore laga duubo muuqaal, kadibna la bilaabi doono operation-ka. Waa isdiyaarinayaan dhakhaatiirtii, waxayna isku diyaarinayaan inay qaliinka ku sameeyaan, balse Eli wuxuu dareemayaa culays fara badan maadaama markii ugu horreysay uu noloshiisa la keenay isbitaal. Wuxuuna arkayaa muraayadda waxyaabo uu la yaabo oo uu fahmi waayo. Kadibna xanuun zaid ayuu dareemayaa, waa uuna qaylinayaa isagoo ku qaylinaya iga saara meeshaan. Balse kadib wuxuu ogaanayaa waxaan inay ahaayeen qarow uu sariirtiisa jiifo. Kadib ayuu soo toosaya, wuxuuna arkayaa daaqad gabar taagan oo lagu magacaabo Hayley. Waxayna u sheegaysaa inuu hoos u soo dego. Sidii ayuu sameynayaa, waa uuna u soo degayaa. Halkaas ayayna isku baranayaan labadooda. Eli wuxuu u sheegay inay gudaha soo gasho una xiisayo turubka, balse iyada waxay tusaysaa holac gacanteeda ayaana holac ku saaran yahay. Wuxuu leeyahay gudaha soo gal, balse way ka diidaysaa. Waxayna leedahay meeshaan ma soo geli karo oo ma ahan meel fiican. Intaas kadib Eli wuu iska soo laabanaya, wuxuuna soo galayaa gudaha. Wuxuuna arkayaa wax humag oo kale. Markii la arko uu shidan, wuxuu arkayaa in wax ay daba socdaan, wuuna kasoo cararayaa. Ugu dambeyn nalka ayaa imaanaya, wuxuuna dib ugu soo laabanayaa qolkiisa iyadoo weli ay wixii daba socdaan. Waxaa halkiis ka soo baxaya biis. Wuxuuna leeyahay maxaa kugu dhacay? Waxa uu sheegay wixii uu soo arkay, balse
ma ay rumaysanayaan. Intaas kadibna wuxuu habeenkii akhrisanayaa buug magic ah asigoo ka ogaanaya waxa ay tahay gabadhaas. Kadib habeennimadii ayuu banaanka kusoo baxaya isagoo wax baarbaaraya, wuxuuna arkayaa in gabadhi banaanka ay joogto, wixii uu qoran ay sii dhammaystirayso. Intaas kadib Eli wuxuu ogaanayaa in gabadh reer aakhirada ay daba socoto oo uu ka cararaya, balse way ka daba imaanaysaa. Waalidiintiisa ayaa xaaladiisa dejinaya. Tooreysada ayayna weydiinayaan wax ku dhaca wiilkooda, waxayna sheegaysaa in waxaan ay yihiin saameynta ay ku yeelatay daawada uuna fiicnaan doono mar dhow. Intaas kadib Eli waxaa loo diyaarinayaa qalinkiisii labaad, waxaana la keenayaa shaybaarka si loogu sameeyo daaweynta labaad, balse waa uu diidayaa. Wuxuuna isku dayaa inuu ka baxsado, balse ma uu awoodo. Xaaladiisana way sii cakirmaysaa Eli. Ugu dambeyn waxay u sheegaysaa in madaxiisa qaybta gadaal ay duleelin doonto si ay ugu sameyso daaweyn casri ah, taasoo laga yaabo inay xaaladiisu wax iska beddesho. Habeenkii wuxuu u sheegay hooyadiis iyo aabihiis in daaweyntan ay xaaladiisa uga sii dartay, uuna kala kulmayo dhibaato xooggan, balse ayaga waa ay ka diidayaan. Waxayna u sheegayaan in haddii daaweynta uu diido xaaladiisa ay sii xumaan doonto, xalna aysan ahayn inuu mar walba oksijiin wato si uu u noolaado. Kadibna wuxuu soo aadayaa qeybaha kale ee isbitaalka, isagoo imaanaya qeybaha qarsoon ee isbitaalka. Baaritaan ayuu halkaas ka wadaa, wuxuuna arkayaa wax reer aakhirada camal oo soo eryanaya. Wixii ayuu kasoo cararayaa, wuxuuna kusoo dhuumanayaa meel qol ah. Qolkii isagoo ku jiro ayuu wuxuu arkayaa waxyaabo lambar ah oo ku qoran albaabka qolkaas. Waxaas ayuuna aad ula yaabayaa, wuxuuna soo xasuusanayaa turubkii iyo gabadhii, balse waalidiintiisa ayaa si lama filaan ah ugu soo galaya qolka. Waxayna u sheegayaan inuu fiicnaan doono, xaaladiisa ay caadi noqon doonto. Balse maalintii xigtay wuxuu la kulmayaa gabadhii, wayna sheekaysanayaan. Waxayna u sheegaysaa in qofkii asigii ka horreeyay ee loo sameeyay daaweyntan uu dhintay. Waa uu la yaabayaa arrintaas. Waxay kale u sheegaysaa inay qolyahani waxba aysan meesha ku helin, ilmaha yaryarna ay dilaan. Sidoo kale waxay u sheegaysaa daaweynta qaybta saddexaad inuusan ogolaanin oo uu diido halkan oo uu isaga cararo halkan. Kadib uu kusoo tagayaa, wuxuu arkay in leerka qolka uu baxbaxayo. Kadib wax uusan arkaynin ayaa jiidanaya oo geynaya qayb kale oo ka mid ah isbitaalka. Wuxuu arkayaa waxa inay yihiin 3 dumar balse aan la arkaynin. Wuxuuna gelayaa qayb kale oo isbitaalka ka mid ah, balse waa la soo qabanayaa oo waxaa la geynayaa qaybtii qaliinka ayaa loo wadaa. Waa uu diidan yahay, balse asiga waa uu cabsanayaa. Balse ayaga hooyadiis iyo aabihiis waxay u sheegeen in arrintan ay tahay isaga xalkiisa. Laakiin si Eli ugu dambeyn waa la suuxiyey, waa uuna seexday. Hooyadiis ayaa waxay sameynaysaa baaritaan, iyadoo isku dayaysa inay ogaato waxa meesha ka socda. Kadib wiilkeeda ayay la kulmaysaa, wuxuu u sheegayaa in arrintan ay tahay khatar, balse iyada ayaa qalbiga u dejinayso. Isagoo hooyadiis la jooga wuxuu arkayaa lambaradii markii ay ka tagtay ayuu soo baxayaa, wuxuuna baaritaan ku sameynayaa lambaradii meesha ku qornaay. Isagoo hoos soo aadaya, aabihiis ayaa gubay dharkiisii, balse maalintii xigtay Eli wuxuu la kulmay gabadhii, isagoo u sheegay arrinka lambaraha. Iyaduna waxay u sheegaysaa inuusan ahayn qof caadi ah oo uu yahay qof awood leh. Baaritaan kale ayuu soo baxayaa Eli, isagoo isbitaalka qaybihiisa kala soo aadaya. Habeennimadii Rose iyo ninkeeda waxay ku doodayaan inay raacaan talada wiilkooda ayna halkan ka tagaan. Rose alaabteeda ayay urursanaysaa, waxayna leedahay waa inaan baxnaa maxaa yeelay wiilkayga xaaladiisa way soo xumaanaysaa, balse dhakhtarada ayaa u sheegaysaa
inay weli jirto rajo. Dhanka kale wiilkii Eli ahaa wuxuu helay feelashii 3 qof ee isaga ka horeysay. 3daas qofna wuxuu ogaan dhamaantood ay halkaani ay ku dhinteen qalinkoodana uusan ahayn mid guulaysta. Markuu soo noqdo wuxuu arkay aabihiisa wuxuu iska dhigayaa sidii qof dhegeysanaya balse uu khiyaanaya waxaana ku darayaa cirbad. Wiilkiina halkaas ayuu lagu qabanayaa isagoo loo diyaarinayo qalinka. haddana waxaa loo soo wadaa qalinka balse mid kamid ah kalkaalisooyinka ayuu qaniinaya halkaasna wuu isaga cararayaa si uu soo dib ayuu ugu soo laabanaya qolkii isagoo raadinaya cadaymihii balse waa u waanayaa. wayna ka diidayaan aabihiisa waxay qasbeen qalinka la geeyo. qolkii ayuu kusoo laabanaya wuxuuna arkayaa sawir wuxuuna ogaan dadka meeshan ka shaqeeya ay yihiin naago. kadibna wuxuu arkayaa irid kale oo qarsoon oo ku taal dhanka iyo hoos. halkaas ayuuna usoo daadegayaa wuxuuna arkayaa god meesha ku yaal. godkaasna waxaa ka buuxa dhammaan dadkii asiga ka horeeyay halkaa la keenay. wuxuuna ogaanayaa in arrintan ay tahay meeshii ayayna kusoo xirayaan. Eli wuxuu isku celinayaa neefta isagoo ka cabsanaya inuu wax soo gaaraan balse wuxuu ogaanayaa inay waxaan loo sheegayay san waxba ka jirin xaaladiisana ay hadda fiican tahay. halkii ayuu ku xiranaanayaa. muddo kadibna waxay sii diyaarsanayaan alaabihii qalinka ayagoo raba inay qalinkii 6aad ku fuliyaan. wiilka hooyadiis ayaa soo raadinaysa halkii ay imaanaysa si badbaadiso balse wuu ugu soo cararayaa. wuxuu isku dayaa inuu banaanka u baxo balse ma awoodo. muraayadda isbitaalkan hadda ayay u adag tahay oo maaha mid jabaysa. isagoo halkaas jooga ayaa lasoo qabanaya dibna loo soo celinayaa. hooyadiis markay soo kacdo waxay arkaysaa calaamadii kirishtaanka halkan taalo. waxay kaloo arkaysaa godka ay ku jiraan meydad fara badan waxayna ogaanaysaa runta waxay tahay. sidoo kale feelashii ayay arkaysaa. dib ay u soo laabanaysaa iyadoo isku dayaysa inay wiilkeeda badbaadsato waxayna wadataa mindi balse ninkeeda ayaa ka qaaday mindida. wuxuuna u sheegay in wiilka loo daaweynayo ayna sugtay. mindidii ayuu ka qaaday wuxuuna kusoo wareejinayaa tooreysadii mindida ay soo qaadaysaa. kadibna biyihii ayay ku shushubaysaa wiilka iyadoo waxyaabo akhrinayso. mindida ayay soo qaadanaysaa markay rabto inay qalin ku samayso. awood aan loo jeedin ayaa ka celinaysa mindidii. kadibna mindida isla iyadii ayaa uu ku muudaya isagoo isticmaalaya awood. kadibna wuu soo kacayaa aabihiis ayuu kala tuuray. dhammaantoodna banaanka ayay ku xiran yihiin oo ma soo geli karaan qolkan. wiilkii Eli ahaa markaan waxaa soo baxday awood u qarsooneed isagoo dadka dhan maamulay weliba isagoona korkooda taabanin. inta aan ka ahayn hooyadiis ayuu dhammaan rabaa inuu ka aargoosto. waxaa soo kacay Eli aabihiis wuxuuna qabsaday mindidii wuxuuna rabaa inuu dilo wiilkiisa balse Eli maadaama uu awood leeyahay waa uu iska celinayaa. wuxuuna isku duminayaa dhammaan wejigiisa halkaas ayuuna ku dilayaa aabihiis. kadib dibadda ayuu soo baxay isagoo halka cagta saaran uu dab ka kacayo. banaanka markuu usoo baxan wuxuu arkayaa gabadhii ay isla arki jireen oo gaari meesha yaal. wuxuu sheegaysaa in isaga uu yahay qof gaara sidaas darteedna ay halkan ka tagayaan ayna aadayaan meesha loogu talagalay. waxay kaloo u sheegaysaa in sababta ay marka hore ugu sheegaysa arrintan ay tahay inay rabtay inuu asiga ogaado waxa uu yahay haddana uu ogaaday. hooyadiis ayaa soo macsalaameynaysa waxayna su'aaleen dhanka gaarigii. filimkiina halkaas ayuu ku dhammaaday ayuu uga sii baxaya goobtii gubanaysa.